waxaana uu wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran barahayga xiriirka bulshada meel walba oo adduunka ka joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal cusub oo aan kaga hadli doono waa kuma ciyaaryahanka qura ee Lionel Messi uu ka codsaday funaanadiisa intii uu ku guda jiray ciyaaraha iyo waliba sheeko kale oo taabanaysa labada ciyaartooy ee Leo uu jeclaan lahaa inuu ka bedesho funaanadahooda balse haatan uu ka qoomameynayo inuusan ka codsan maaliyadahoodii balse inta aanan guda galin warbixinteena ha hilmaamina inaad subscribe inoo saartaan barteena YouTube-ka sidoo kalena aad furataan jaraska ama gambaleelka si ay degdeg idinkugu soo gaaraan muuqaaladeena cusub sidoo kale waxaan codsanaynaa in aad like inoo saartaan muuqaalkan mahadsanidin inta daawata kubadda cagta waxa hubaal ah inaysan indhahooda saarin xidiga kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka Argentine ee Lionel Messi oo ciyaaryahan ka soo horjeeda inta u tago weydiisanaya funaanad ama ku oranaya hebelow funaanadaada ma isiin kartaa taa beddelkeedana waxaan mar walba aragnaa ciyaartooy ku tartamaysa in Lionel Messi ay weydiistaan funaanadiisa kolka ay ciyaaruhu dhamaadaan tan iyo markii Lionel Messi uu noqday laacib ka tirsan safka hore ee kooxda Barcelona waxa uu ku dhaqmayay siyaasad ah in uusan marnaba funaanad weydiisan ciyaaryahan ka soo horjeeda haddii ay iyagu weydiistaan oo isagu go'aankeeda leeyahay inuu siiyo iyo inuu u diido labadaba balse Messi ayaa sida uu dhawaan cadeeyay waxa uu sheegay in uu si gaar ah u ixtiraamo ciyaartooyda reer Argentine oo haddii xidig u dhashay Argentine uu ka dalbado funaanadiisa uu durbadiiba u siibo laakiin waxaa jirtay marar badan oo uu Lionel Messi jabiyay siyaasadiisa funaanad bixinta iyo funaanad weydiisashada xidigaha ka soo horjeeda waxaana haddii Lionel Messi laga guuleysto yacni haddii naadigiisa Barcelona tusaale ahaan laga badiyo waxaa Messi uu gabi ahaan badiidaa inuu funaanadiisa siiyo ciyaartooyda ka soo horjeeda sida dhacday kulankii Bayern Munich iyo kooxda Barcelona ee sanadkii hore ciyaartaas oo 8 gool iyo 2 lagu karbaashay naadiga Blaugrana markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxaa Messi u yimid xidigyaraha kooxda Barcelona ee Alphonso Davies oo Messi weydiistay funaanadiisa hase yeeshee nasiib darro Leo waa uu diiday inuu funaanada u bixiyo ciyaaryahan Alphonso waan weydiistay Messi funaanadiisa laakiin ima siinin waayo waxaan u maleynayaa inuu xoogaa caraysnaa laakiin laga yaabee in marka dambe uu isiiyo ayuu yiri Alphonso Davies oo 14kii bishii Agoosto la hadlayay shabakada BT Sport waraysi gaar ah oo 2 bilood ka hor uu wargeyska Ole ee ka soo baxa wadanka Argentine la yeeshay ciyaaryahan Lionel Messi xilligaas oo uu jaraa'idku u dabaaldegayay sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay ayaa waxa uu Lionel Messi kaga hadlay arrimo badan oo sir ah oo ku saabsan noloshiisa iyo xirfadiisa ciyaareed Messi ayaa xusay in yaraantiisii uusan wax ahmiyad ah siin jirin xidigaha ka soo horjeeda iyo funaanadaha ay ku ciyaaraan balse haatan markii uu weynaaday kuna dhawaaday da'da ciyaaraha looga fariisto uu ogaaday in uu arintaasi ku qaldanaa ayna fiicnayd inuu urursado funaanada badan si ay xusuus ugu noqoto marka uu ciyaaraha ka fariisto waxaana Messi uu si gaar ah carabka ugu dhuftay labada ciyaartooy ee uu ka qoomameynayo in uusan weydiisan ama ka bedelan funaanadahoodii intii ay ciyaaraha ku jireen kuwaas oo kala ah xidigihii reer Brazil ee Luis Nazario Ronaldo iyo Roberto Carlos oo xilligaa u ciyaarayay kooxda Real Madrid oo ah mid ay aad u xafiiltamaan Barcelona waxaan ka qoomameynayaa in aan funaanada ka bedelan waayo laacibiin caan ah sida Ronaldo iyo Roberto Carlos haddii arintaasi mar labaad la soo celin kari lahaa waxaan weydiisan lahaa funaanadahooda ayuu yiri Messi oo ka hortagay Ronaldo iyo Roberto Carlos kulamo El Clasico waqtigaas oo ku aadanayd bilowga waayaha ciyaareed ee Messi halka Ronaldo iyo Roberto Carlosna ay ku jireen waqtiyadoodii ugu dambeeyay ee kubadda cagta waxyaabaha kale ee uu ka dhawaajiyay kabtanka kooxda Barcelona ee Messi waxa kamid ah in uu jiro hal ciyaartooy oo qura kaasoo intuu toos ugu tagay Leo uu weydiistay funaanadiisa tan iyo markii uu soo bilaabay ciyaaraha kubadda cagta halka xidig ee uu Messi ka codsaday funaanadiisa ayaana ah laacibkii hore ee naadiga Real Madrid iyo xulka qaranka Faransiiska ee Zinedine Zidane Messi iyo Zidane waxay iska hor yimaadeen xilli ciyaareedkii 2005-2006 waqtigaas oo ahaa xilli ciyaareedkii labaad ee Lionel Messi iyo xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee uu Zidane u dheelay Real Madrid waxaana dhamaadkii kulankii caanka ahaa ee El Clasico ee sanadkii 2005 ay isaga hor yimaadeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona kaasoo 3-0 looga adkaaday Real Madrid
oo ciyaaryahan Lionel Messi funaanadiisa weydiistay xidiga reer France ee Zidane. intaas waxaan ku soo koobaynaa warbixintii aan kaga hadlaynay halkii ciyaaryahan ee uu abid ku dhiiraday Lionel Messi inuu funaanadiisa ka codsado oo uu weydiisto ka oo ahaa Zinedine Zidane, iyo waliba labada laacib ee uu Lionel Messi ka qoomameynayo inuusan weydiisan funaanadahooda waqtigii ay ciyaaraha ku jireen, kuwaas oo kala ah Luis Nazario Ronaldo iyo Roberto Carlos. intaan ku kulmi doono warbixin kale, waa anigoo ah Harun Yusuf Qasaaro oo idin kaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo.